السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalkiina Xuseen maanta waxaan doonayaa inaan idin la wadaago sidii aad ugu ganacsan lahayd Amazon ama eBay adigoo sameynayo drop shipping waa mid ka mid ah noocyada online business loo sameeyo noocyada ganacsiga online loogu sameeyo haddana waxaan doonayaa inaan idin la qaybsado sida aad u sameyn doontid waayo dhalinyaro badan ayaa waxay soo weydiisay in aan video ka sameeyo sida loo ganacsado drop shipping marka waxaan rabaa inaan si fiican aan idinku sheego drop shipping waa wax aan soo research gareeyay ani weligay ma aanan sameynin marar badan baa isku dayay marka balse wixii waa dhaqaajin waayay marka I want to clear out that waxaan rabaa inaan si fiican aan idinku sheego drop shipping ma aanan sameynin waxyaalaha loo baahnaa waa sameeyay laakiin wax yar waa igu adkaatay wax hadda oo successful ani aan ku guuleystay oo macnaa hadda oo wax ii shaqeynayo ama barnaamij ii socdo ma ahan marka waxaan doonayaa in aan idin sheego inta kale inta ani aan sameeyay waa aan sameeyay inta kale aan ka hadli doono waa wax aan research aan usoo sameeyay oo videoga aan idinku soo sameynayo marka fikradda nidaamka kulli waa idin sheegi doonaa marka waxaa laga yaabaa in adiga ama qofka dhageysanayo ama qofka adi oo dropshipping u baahan in adi oo aad ka faa'iideysan doonto videogan ama aad iga fikrad fiicnaan doontid ama aad iga maskax fiicnaan doontid qaab kale ama nidaam kale waxyaalo kale aad ku tarsan doontid ama xog dheeraad kale ama aad heshid oo aad ganacsigaas aad wadi kartid balse aniga ma aanan ku guuleysanin mana sameeyo hadda balse laakiin waxaa idin tusin doonaa qaabka aad u sameyn kartid drop shipping marka hore waxaan doonayaa inaan ka hadlo waa maxay drop shipping waa online business waa noocyada ganacsiga online-ka loogu sameysto waa nooca ugu sahlan adi aad sameyn kartid balse howlo badan ayay u baahan tahay ganacsi kasto bilowdo waxay u baahan tahay howl iyo lacag in la geliyo marka koowaad waxay qaadan kartaa waqti ay kuu qaadan kartaa in ganacsiga kuu shaqeeyo balse drop shipping waa nidaam aad alaab ku iibin kartid adigoo alaabta aadan arkaynin ama aadan taabanaynin nidaamkaasna waayo waxaad noqon doontaa qofka isku xira dadka alaabta soo saara manufacturada ama supplierada iyo dadka alaabta iibsada adi waxaa tahay marka sida broker oo dadka u dhaxeeyo si aad u bilowdid drop shipping business waxaad u baahan doontaa inaad haysatid website waayo drop shipping waxaad u baahan tahay in aad isku keentid supplierada iyo customerada sidaan idin sheegay sida laisku keenan waa un keliya inaad haysatid website oo aad u samaysid advertisement badan drop shipping haddii aad maqashid waa in aad soo jiidato dareenka bulshada ama dareenka dadka target groupka ama dadka macaamiisha ku ah adi aad is leedahay alaabtan ayagaa ka iibsan karaan haddii aad iibinayso kombiyuutaro waa inaad ogaataa target groupka inuu uu yahay dadka kombiyuutarada isticmaalan ama arday ha ahaadaan ama dadka shaqaale ahaan oo ofisyada ama meelaha ka shaqeeya inay yihiin inaad ogaatid kadibna aad samaysataa advertisement ama ads xayeysiino oo aad u baahan tahay in aad Facebook aad ku xayeysiisid ama Instagram aad ku xayeysiisid ama meelaha kale aad u malaysid dadka macaamiishaada ah ama dadka target groupkaada ah laga heli karo inta badan dadka waxay isticmaalaan Facebook iyo Instagram intaas ay isticmaalaan iyo kuwa kale hadda zaidka loo isticmaalo waa YouTube marka muhiimadda waxaa waaye kooda in aad lahaatid website inta badan dadka waxay isticmaalaan website-ka loo yaqaano Shopify waayo wuxuu ku siin doonaa maxaa la dhihi jiray domain iyo hosting iswato ayay ku siin doonaan balse designing-ka wixii kalena adiga ayaa samaysan doonta haddana waa idin tusin doonaa midka ani aan furtay oo haddana ii shaqeyn waayo ani haddana aan doonayo marka inaan iska close gareeyo waayo qarash ayaa iga galooy marka waxna hadda oo wax soo saar uu leeyahayna ma lahan muhiimadda waxaa waaye in aad lahaataa website oo aad customerka iyo supplierska aad isku keenaysid haddaba ganacsiga siduu u shaqeeyaa sidee u shaqeeyaa ganacsiga wuxuu u shaqeeyaa ganacsiga drop shipping alaabta website-ka aad samaysatay ama aad hagaajisatay aad design garaysay ayaa waxaad gelinaysaa sawirada
priceka qiimaha iyo meesha adi oo lacagta lagugu soo diri lahaa connectionkaas waxaa aad u yaqaano dadka designinga ku dheero ama dadka developerska website-ka sameeya ayaa intaas dhanba ku dhamaystirayaan. waxaad u baahan tahay haddii adi aan garanaynin qaabka loo sameeyo oo Shopify ama website-ka lagu sameeyo waxaad ka heli kartaa maxaa la dhahay dad oo khibro ka ah ama dad ku takhasusay ama professional ka ah sida website-ada ama Shopify loo sameeyo. Fiverr ayaad aadi kartaa balse lacag ayaa laga qaadan doonaa. waa inaad diyaar u ahaataa inaad lacag aad bixisid oo professional aad howshaas aad u dhiibtid, wax kasta ayagaa ku dhameynayan. inta kale waxaad u baahan tahay advertisement inaad u samaysid alaabta aad iibinaysid oo website-kaada aad ku iibinaysid, aad link u samaysid, aad keentid qofka Facebooka ama Amazon Facebooka ama Instagram, dadka ay kugu soo raacaan website-ka ay imaadaan ay alaabta u arkaan. mar hadday alaabta ay arkaan alaabta ay gataan, isla markaas waxaa kuu soo dhici doono email dhahayo hebel ayaa kaa gatay oo joogo magaaladaas. waxaad u baahan tahay alaabtan in aad dirtid, waayo waxaad tahay keliya adi qof broker ah dhexda joogo, alaabta ma aad haysid. keliya waxaad leedahay website oo xayeysiin leh. xayeysiinta waqtigii lagaa iibsado xayeysiin keliya ayaad iibin haysaa. xayeysiinta waqti lagaa iibsado oo lacagtan ay kuu soo dhacdo hebel ay iibsado lacagta alaabtan dir waqti lagu dhaho ayaad waxaad yeelaysaa qofka supplierada oo inta badan dadka waxay isticmaalaan supplierada ka imaada AliExpress. dadkaas ayaa aad iyo aad mostly u isticmaalo. waa in aad ayaga u gashaa, aad tiraahdaa alaab intaas hebel ayaa iibsaday, hebel oo adresskan joogo 5 xabo halii uu iibsaday ayaa waxaad leedahay adresskan ugu dir. lacagti meeshii oo maxaa la dhihi jiray oo customerka ka bixin lahaa lacagti adaa bixinayso, waayo lacagti mar hore customerka uu kuu soo diray. faa'iidada ku jirto waxaa waaye supplierada aad kasoo qaadanayso raqiis ayaad ugu soo heli doontaa, adna waxaad meesha ugu sii iibin haysaa website-kaada lacag aad iyo aad u fiican oo faa'iido kugu jirto. waayo supplierada inta badankood lacag yar ayay macnaha alaabta ku iibiyaan, adna waxaa waaye website-ka lacag fiican ayaad gelinaysaa. qofku lacagtaas waqti uu ku siiyo waxaad heli doontaa lacag oo alaabtaas lagugu shibgareeyo oo lacagtaasna aad kasoo iibsatid, lacag fiican waa kuusii haraysaa. nidaamkaas ayaa loogu shaqaystaa dropshipping. balse waa muhiim inaad heshaa, aad raadisaa supplier wanaagsan, aad xiriir aad la samaysatid oo aad alaabta aad iibin haysid meesha lagu soo qaadi lahaa inaad ogaatid. waa muhiim ka hor inta aadan xayeysiinta iyo waxyaalo aad gelinayso website-ka aad ku xayeysiin rabtid inaad ogaataa supplierka aad kusoo qaadan doonto, waayo alaabaa lagu soo dirsan doonaa. ma loo baahna in aad raadisid supplier ama qof isla markaas alaabtaas diro, waayo customerada waxay jecel yihiin inta badan dad isla markiiba alaabta la iibsado alaabta loo soo diro ay qaadato. hadday u badato 7 beri inay qaadato, hadday u badato 7 beri inay qaadato alaabta inay u tagto. waayo haddii aad bilowdid ama supplier aadan haynin aad bilowdid supplier inaad raadisid waxay keeni doontaa supplierada customerada in aysan ku qancin serviceka ama alaabta ay u arkaan in adi oo aad waqti dheer aad qaadanaysid. midda kale dheeraad waa inaad ogaataa haddii aad doonaysa inaad dropshipping aad samaysaa supplierada waa inaad la hadashaa oona aad tiraahdaa waxaad yeeshaa invoice ha u dirin, rasiida ha u dirin, waayo waxay u diri doonaan rasiidaha in alaabta la gatay oona lagu gatay dadka supplierada adi alaabta aad ku iibinaysid. waa inaad u sheegtaa, aad dhahdaa invoice ku darina alaabta keligeed adresskan u dira. sidaas ayaad dhihi kartaa, waa inaad u sheegtaa si ay customerada ku arkin in adiga aad qof kale aad kusoo iibisid. waayo hal mar haddii ay ogaadaan ganacsigaada marka waxaa waaye dee customer ma helaysid. qofka haddii beri aad u baahdo alaabtii daraad uu ka iibsaday intuasi oo adig kuusoo mari lahaa directly wuxuu u aadayaa qofka supplierka ah. marka dropshipping waa inta kalena dadka badankood waxa ay sameeyaan alaabta waxay aadaan meelaha raqiiska ka ah alaabta sida garage sale, alaabaha banaamaha lagu gadgado ama dharka oo hodheyga ah meelaha lagu gadgado ayay intay soo qaataan ayay guryahood keensadaan advertisement waxaasay u samaystaan, xayeysiin ay u samaystaan. mar haddii oo ay customerada ay iibsadaan ayaga gacantooda ay ku qaadaan ayaga u shibgareeyo. kaasina waa nidaam, balse inta badan dropshipping waxaa weeye in aad isku xirtid qofka supplierka inta badan lagu helo AliExpress
iyo websiteka adi aad iska leedahay. mar haddii aad isku xirtid, haddii alaabta websiteka lagu iibsado, adiga website maxaa lahay supplierka la hadlayso, waxaad leedahay adresskan u dir, lacagtana waa tana, adna kistaada meesha kala haree. marka nidaamkaas ayaa lagu shaqaystaa. hopefully waxaan filayaa in adi aad fahantay. haddii aad u baahan tahayna in nidaamkaas ama website waxaas lagu sameeyo, waxaad ku heli kartaa Fiverr. haddana waxaan ku tusin doonaa websiteka ani aan leeyahay oo Shopify liigu sameeyey, balse ogow waan iska xiri rabaa ama ii shaqeeyo, balse nidaamka iyo qaabka si aad u ogaatid alaabta iyo waxyaalaha sida looga xayeysiiyo ama websiteka aad u aragtid. haddaba waxaan ku tusin doonaa websiteka hadda aan kuu sheegayo oo raqiiska ahaa Shopify, oo aad websiteka aad ku furan kartid oo alaabtaada aad gelin karta, kadibna xayeysiina Facebook iyo Instagram aad ku samayn kartid. waxaan filayaa in aad fahantay fikradda nidaamka loogu shaqeysto dropshipping. mar labaad waxaan doonaa inaan kuu sheego, aniga ma sameynin, ma aanan ku guuleysanin in aan macnaa wax ka soo saaro, wuu ii shaqeyn waayey. marka waxaan filayaa in aad ku faa'iidaysateen videogan, haddii aad doonaysid inaad ganacsigaas aad gashid, aad ku guuleysan doontid. haddana aan idin tusiyo websiteka iyo nidaamka qaabkii uu yahay iyo intaas dhan. waayahay, marka koowaad waxaan doonayaa inaan idin tusiyo websiteka aan ku leeyahay Shopify. aad noocaas oo kale aad samaysan kartid oo alaabtaada sidaad ugu iibisid, oo meesha ay dadka aad kusoo direct garayn karto inay ku iibsadaan. waayo waa inaad website aad lahaataa sidaan idin sheegay, oo alaab aad gelisid si ay dadka websiteka ugu iibsadaan. mar hadday iibsadaan email uu kusoo dhaco, waxaa loo baahan yahay haddana supplierka qofka meesha alaabta lagu helo inaad informationka adresska aad siiso, lacagtana aad ka dhiibtid si ayaga directly ay ugu diraan, adna kasta aad kula habtid. nidaamkaas waaye. marka waxaad u baahan tahay in aad lahaatid website sida hadda idin sheegay. websiteki waa GulfHub, www.gulfhub.com. waa idin tusin doonaa, haddana waa arki doontaan nidaamka qaabka uu yahay, sidaad u baahan tahay inaad u samaysid. kadibna shaqada ugu badan aad u baahan tahay inaad samaysid waa advertisement, xayeysiin. dropshipping haddii aad maqashid, waa inaad raadisaa attentionka dadka si ay ugu iibsadaan alaabta websitekaada. waayo website haddii aad isku samayso meesha aad ku dhaaftid, qofna aanan ogeyn, qof kuu imaanaya male, adigaa lacag kuugu soconayso. marka khasaare iyo waxaasaad geli doontaa. sidaad u aragtidbo, dadkan waa websitekeyga, homepagekiisa waka automotive aan iibiya, kitchen items, beauty, art and craft, waxyaalo badan ayaan websiteka u sameeyey, balse ani waa ii shaqeyn waaye. alaabta aan ku iibiya haddii aad aragtid qaybta automotiveka waka aragtaa dee GulfHub motor train $50, GulfHub portable air compressor $90, GulfHub bike phone mount waa $45. qofka hal mar haddii uu iibsado oo uu dhaho uu ku dhufto, wuxuu geen doonaa meesha uu ku iibsan lahaa. hal mar haddii uu iibsado, check out uu dhaho, email ay soo dhici doono oo lii dhihi doono waraa hebel ayaa wax kaa iibsaday, adresskiisana waa kan, alaabtan u dir. isla markaa ani waxaan aadaya qofka supplierka aan ogahay oo meel aan ku ogahay alaabtan iibiyo, adresskii asaan ka iibsanaya, adresska waxaan siin doonaa qofka customerka ah. kadibna waxaan u sheegi doonaa in receipt uusan ku darin alaabtaas, waayo dadka supplierada naftirkood way ogsan yihiin qaabka loo ganacsado, wax kasta way la socdaan. marka ma diidaan lacagtoodba hal mar haddii ay siiso alaabtan aad ku iibsatid, wax ay hadda diidayaan male. marka nidaamkaas waa inaad sidaas u ogaataa. supplier fiicanna inaad raasatid waayo sida alaabta lagugu soo celinin. marka waa sidaa. marka websiteka noocaana loo samaystaa. marka inta kale waxaa waay keliya waxaad u baahan tahay inaad Facebook aad ku sheegaraysid, Twitter, Pinterest, Instagram, intaan dhan inaad share garaysid si oo websiteka dad badan u imaadaan oo alaabta ay ka iibsadaan, adna aad u raadsid. nidaamkaas ayaad wax u raadsan kartaa. sidaasna ayaa dropshipping loogu shaqaysan karaa. marka websitena sidaasaa loo samaysan karaa. haddii aad u baahan tahay in website aad samaysatid, waxaad aadi kartaa Fiverr. websitekan ayaad imaan doontaa www.fiverr.com. so account ayaad ku samaysan doontaa. waxaad raadinaysaa marka aad waxaad leedahay Shopify developer,
Shopify, you see Shopify website, store, dropshipping, marketing, wax kasta ayaad ka heli doontaa, wax kasta aad aan garanaynin waxaadna ka heli doontaa si raqiis ah. hadda ma aaminid kartid website-kan aad aragtid ani hadda la ii sameeyey, waxaa la iigu sameeyey $20 keliya, $20 keliya ayaa la iigu sameeyey. So marka Fiverr waxaad ka heli kartaa raqiis, marka waxaa loo baahan yahay inaad meeshaan imaatid, aad developer aad u imaatid oo aad dhahdaa ii hagaaji, lacagtana waad ku heshiinaysaan. waa inaad raadisaa dad oo maxaa lahay oo raqiis kugu sameeyo, waayo hana isdhihin macnaa developer oo lacag badan qaata, dadkaasa ku fiican, ayaga wax fiican sameynayaan, kii kale hana isdhihin, waayo dad waxaa ku jiro meeshan oo maasha allah ee aad iyo aad u fiican, aad iyo aad u wanaagsan, wax kasta kuu qaban karaan, oo u baahan balse lacag doonayaan inay kugu sameeyaan. wax fiican way kugu sameeyaan, lacag raqiis ahna way kugu sameynayaan. haddii aad isdhahdid lacag badanaan bixinaya, khasaar ay kugu noqoneen, wixii kan lacagta raqiiska ah ku dhahoy, kan kalena kaas unbuu kuu sameynaa. marka isku day inaad macnaa lacagta aad safe garaysatid iyo waxyaalaha kale sida advertisement iyo waxyaalaha xayeysiinta inaad gelisid, sidaas isku day. marka waxaan filayaa inaad fahantay. meesha supplierada lagu raadiyin waa AliExpress. waa inaad connection aad la sameysaa ka hor inta aadan barnaamijyadan ama alaabta aad iibinaysid aadan gelin. marka alaabta la geliyena waa inaad ogaataa sidee ayaad ka ogaan kartaa alaabta ugu fiican oo kuu godmayso oo la geliyey. waxaad imaanaysaa 100 best selling product on Amazon ayaad leedahay. meeshan ayaa la imaadaa dee kids version alaabta, meeshan ayaad macnaa ku soos gareyn kartaa. waxaad raadin kartaa qof alaabta isla markaas adi oo aad kusoo iibsatid ama xiriir aad la samaysid, aad la hadashid, waa communicationkiisuna waa isku fiican yahay. marka sidaas ayaad u sheegay. marka kan hadda oo kaleet $4 ayaa la iibiyaa. waad imaan kartaa website-ka, waxaad leedahay dee $25 oo kaleedaad leedahay. marka directly qof waqti uu $25 uu bixi, waa imaanaysaa $6 oo kaleeda dhiibe ama $8 oo kaleeda dhiibe, lacagta iyo maxaa lahay shippingkiis isku jiro. waxaa meesha faa'iido ka heli doontaa ugu yaraan $15 ama $12 saas oo kaleedaad ku heli doontaa. marka dropshipping sidaas oo kaleeda lagu ganacsadaa. waa inaad ogaataa aad haysataa supplier fiican oo aad mar hore isla hadasheen, isla markii alaabta ku kala tuuro haddii wax la iibsado. waa sidaas. marka sidaas ayaa lagu ganacsadaa. midda kale waxaa waaye waa in aad ogaataa AliExpress waa idin sheegay, Fiverr waa idin tusiyey. maxaa kaloo dhiman oo aan idin tusiyaa? waxaan filayaa inaad fahanteen nidaamkiisa, ayadoo haddana gaaban. waxaa waaye waa inaad raadsataa supplier oo alaabta ku siiyo, ama aad markasta isla markiiba aad alaabta kuu diro. waa in aad lahaataa website, waa inaad sameysaa xayeysiin. waa saddexda ugu muhiimsan adii aad u baahantay inaad ogaatid. haddii aad u baahantahayna in lagu sameyno hilmaamin, Fiverr ayaad imaan kartaa. haddii aad maasha allah aad ku fiican tahay sida websiter designer haddii aad tahay waad sameysan kartaa. haddii designer aadan ahayn waa imaan kartaa, qof ayaa meeshan kuu sameyn doono oo wixii dhan asaa kuu setgareynay, accountiga iyo paypalka iyo waxaas dhan, ama haddii bengi lagugu xirxirayo asaa kugu xirxirayo, intaasoo dhan asaa kuu sameynayo. marka waa inaad sidaas u ogaataa. marka inta kalena waxaa waaye dee xayeysiin waaye, shaqada ugu badan ugu muhiimsan waa dropshipping, waa xayeysiintaas. marka waxaan filaya inaad fahanteen. fadlan haddii oo aad fikrad dheeraad aad qabtid, ama ganacsiga mar hore aad samaysid, ama aad ku guulaysatid, ama wax dheeraad oo jiro oo annaga aan ogeyn, fadlan qaybta commentiga kusoo qor si aan u waano annaga naftirkeena ama dhalinyarada kalena ay ugu faa'iidaystaan. waayo anagoo dhan waxaan doonaynaa in aan wax kala faa'iidaysano, waxna aan ogaano oo si oo aan ganacsi ama wax aan u sameyno oo dhaqaale meel nagu soo galo aan u sameyno. fadlan waxaan filaya inaad fahanteen. wixii dheeraad ahna ama haddii su-aal aad qabtid, fadlan dhinaca comment kusoo qor. waxaan isku dayayaa inaan idinku soo jawaabo oo wixii oo dheeraad ahna idinla soo wadaago. thank you, waa mahadsantihiin. videoyada kale ayaan ku wada kulmi doonaa. ilaa iyo amar dambe.